السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكالنتادي كمبيوترka walaalaha dhamaan meel kastoo joogtaanba Allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajeynaa inuu dhammaan xifdiya masaa'ibtana naga baryo walaaladeediyo wararka way iska soo daba dhacaya runtii arrimaha mararka qaar annaga oo muhiimadda u ah dadka maadaama af Soomaaligana ka hadlaynay jiritaanka iyo madax banaanida geyiga Soomaaliyeed waa lama taabtaan kuwa naga maqan sida NFD iyo maaragtay walaalaheena Soomaali galbeed oo deegaanka Soomaaliyeed hadda loo bixiyay kuwaas u baahanba maaragtay laftirkooda in dib looga hadla iyo taariikhdoodaba isku soo duduub waxaan rabaa in hal qodob aan ka yiraahdo waxnana waxa way waxay Soomaali isku hayso dhaxdeena waxnana waxa way wax Soomaali banaankeeda ka ah jiritaankeeda iyo dhulkeedii iyo midnimadeeda taasoo kala dhaxdhaxad ka noqon kartid sababtoo ah ilan qof kasta Ilaahay subxaanahu wa tacaala deegaan buu ku abuuray deegaan Soomaaliyeed la yiraahdo lagu abuuray saas daraadeed marka deegaankeenii waa inaynu difaacino anagoo wada jir ah waxyaalahan isku hayna annaga aragti duwanaansha ah waa inoo gaarkeeda meel hanoo yaalo waxa saas u leeyahay waxa way walaalaha Soomaaliyeed meel kastoo joogaanba muhiimadda gaarka waxay tahay inaynu xoogga saarna horta annaga maxaa naga maqan oo mushkiladana haysata maxay tahay marka inteena ku dheeraan horta newska idin dul maro kadibna waa u soo noqon doonaa waxyaalaha qaarka dabcan waa 16 bishii war degdeg diyaaradda Ethiopia Airline oo Hargeysa ku tagi lahayd maamulka hawada Soomaaliya ku hor istaagay waxaan rabaa laba arrimood in cadeeyo Hargeysa Muqdisho cadow kuma ahan laakiin niman siyaasiyiin ayaa qaladaad siyaasadeed ay abuureen markii doorashooyinkii Soomaaliland qaban waayeen ay dadkii iyo jiritaankii Soomaaliland iyo wadajirkoodii markay hayn waayeen ayay sii daayeen wadankii oo qayb ka dhigeen kadibna waxay marmarsiyo ka dhigteen bad kale inay galaan oo ma aragtay ayay ku dhaqaaqeen markiina rabo ku si dheeraado ma aha laakiin waxaan rabaa shacabkiina u sheego shacabka Soomaaliyeed Hargeysa ku nool iyo kuwa Soomaaliland ku noolba in ma aragtay aysan Soomaali aysan ahayn ee qadiyada tahay Soomaali Ethiopia hore arrimo isku hayn jiray taariikhna ah ayaa walaaladeena siyaasiyiinta dhaxboodeen taasna saameyn ay ku yeelanaysaa shacabka Hargeysa jooga sababtoo ah ani raani kuma faraxsan shakhsiyan inta Soomaaliyeed la dhibaateeyo oo walaaladeena ah dhibaatana soo gaarto laakiin markii siyaasad noqoto siyaasiyiinta waxa way madaxiis la galaayo waa la socotay marka laga hor istaagay maadaama laga hor istaagay dawladda Soomaaliya waxa xayirtay dawladaha Ethiopia u socday Soomaaliland diyaaradda waxa saarnay ra'iisul wasaare ku-xigeenka sida la xaqiijiyay dabcan ama rag VIP ama dawladda Ethiopia soo dirto ay leedahay maadaama heshiis bad ay gashay oonan heshiiskaas caalami uusan ahayn heshiis caalami waxaan ka wada heshiis sharciga dunida waafaqsan uusan ahayn waa la ogyahay taas adiga dhageysan doona aniga waa ognahay walaaladeen Soomaaliland dawlad madax bannaan jamhuuriyadda madax bannaan isku magacaabeen 1990kii waa sax dadkoodii way ka tashteen waxbay isku yimaadeen laakiin koonfurta Soomaaliya dawladda dhexe fadhiso miyay raali ka noqotay miyay sii deysay jawaabta kooban mayo hadaynu reality ka hadalno anagoo caadifadna qaadin oo dadna ku xumeeyeen oo dadkana aflagaadeyneen waa sida jirto waa saas marka dawladaadkii ayaa sida wufuudisiday ku socotay caasimadda Hargeysa Soomaaliya qoraalkan ana tarjumay luqadda Englishka ahayd insha Allah referencegana waa hadarto hoostan ku soo galin soo English hada English taqaan akhri ani ma qorin waxaan ka soo qaatay Addis Ababa maaragtay Standard waxaan ka soo qaatay Bloomberg wada dadka af Ingiriiska Bloomberg waa taqaanayo journalka ugu weyn oo arrimaha faahfaahiya ninka billionaire iska lahay madaxweynaha Mareykanka soo sharaxay waqtigii hadda doorashada u dambeysay marka dadka qaar marka waxaan rabaa in reference raacay Soomaaliya waxay raadinaysaa aqoonsi caalami ah walina uma suuro galin arintaasna waxa
وكو علي المر لباد ولا الذي ذيو عجلد وحجستون كغا هادلو الى هذا سياسيين سوماليلاند كما غونا اني سوماليلاند غون استاكش كون كوفريدنا كما غونا وانا عدي عجلد سدب ولابنيسا وحساس ليه وحواي شعبكم بل ما ويلينايا او ما ويلada waa shimbriyaal oo hees maqli jirtay oo bal uu mashquul isagoo Englishna waa kala ka soo qaatay Ethiopia Airlines flight Hargeysa deterred by Somali Aviation Authority ayaa sameeyay qaybta kor waxa ka soo qaatay Addis Ababa ka soo qaatay Standard qaybta hoosena waxa ka soo qaatay Somali Block Ethiopia flight Bloomberg ka soo qaatay meeshaas ugu noqonaysa wixii reference aniga maaragtay hoosta ku soo galin doona laakiin waxaan rabaa inaan kula wadaago kaliya dowladda Soomaaliya marka waxa laga rabaa talaabooyinka qaadis diyaaradda Ethiopia Airlines automatically la joojiyay taas aan qabateen xaq dhaqaale ugu filan Ethiopia oo soo noqon doona walaaladeena talaabada xigta ciidanka jooga koonfurta Soomaaliya ee qaasatan koonfur galbeed ku sugan waa in la bedelaa iyagoo dhan oo banaanka la dhigaa waxa ii xiga waa inaan la keenin ciidamo Masar Ethiopia way hayaan anaga ma gali karno proxy war ma fahanti dagaal sokeeye sida Ukraine iyo Europe iyo Mareykanka ku dhex dagaalamayaan ee Ruushka ay u dhitinayaan marka taas oo kale noqonaysa marka qasaara ugu jiro waqooyiga Soomaaliya koonfurta Soomaaliya haddii proxy war Soomaaliya gudaheeda noqoto oo Masar la keenay Eritrea Ethiopia khilaafkooda waa odkaay isma arki karaan dhawaan waa fiicantahay alliance military oo lagu cadaadinay illa la sameeysto laakiin waa ciidamadoodii waa in geeyga Soomaaliyeed aan la keenin taasan taageersana dhalinyaro Soomaaliyeed oo diyaar jiro kuwaas in maaragtay lagu bedelo arrintaas waa muhiim marka waxaan rabaa in uu soo jeesto marka walaalada waqooyiga Soomaaliya ama Somaliland dadkaas waa walaaladeeni waxaana mideeyay walaaladeedii diinta islaamka ilaahay wuxuu leeyahay innamal mu'minuuna ikhwa dadka walaalaha waa mu'miniin فأصلحوا بين أخويكم دلس قبتو هلا هجاجيو وحلا هذا دتك عقلك سليم كوا سياسيين أنت ولا الذي وحيسوا ذين وهالكاسي كدعذي حمان قار مجرتو لكن سياسيين هدق عنتكو هاي ما ملك سومالي لان runtii waxa ka shaqeynaya burburka Soomaaliya anigu ma faraxsani koo siyaasi kii علي Soomaaliland iyo wixii ka horeeyay mana ku farxi doono waxaan ugu farxin waxa way dhiiga Soomaalinimada islaamnimada diidaysa bal dawladda dhexe Soomaaliya hadda inay walaaladaas dhibaateyso raali kama nihin laakiin waxyaalaha yaala waxay tahay haddii diyaaradihii la joojiyo shacabkay saameynaysa taas loo gudbaa waxa loo gudbayaa dawladda Itoobiya la tuso ko maalmo in la xanibo la tuso tabarteedii awoodeeda kadibna sulxiya imaana asulxu khayr Ethiopia وميرسنيسا أبي أحمد ولما ميرسن وحين كوا علين أبي أحمد وحو آمن سنة هذا أخرسان تاريخ ديسي وحي ملينك آمن سنة أبي أحمد ونيكي دقالك كواد أرمضكو بالله بي هذا ديبو آخرين سنة دي سابوا قده هذي والرق مرايكن كيما دياسبرا وحي كل بروا أكتها نيكي لا ترتمى كوح ديسي كمي تقع وحاكم إذا فنان إثيوبيان إن مقالة إثيوبيا لو دي لي أرقلادها الدرتين أرماء oromada gudaheedu ka bilaabay waxa soo xigay maxaa la dhahaa Tigreega Oromo iyo Canfar saddex maray 2003 Google ku qor hadda fighting Oromo iyo waxaad ku qortaa maaragtay Canfar saddex mar ay sanadkan gudihiisa dagaalameen maamulada Soomaaliyeed dhinaca jiray maamulka Soomaaliga waa ogtahay isku soo duduub wanikan ma qanin imaarada behind scenes ka fadhiya imaarada dahabka qorta u galiyay imaarada dhaqaalaha bixinayo waxaana rabaa inaan kugu celiyo marka la walaaladiido dawladda imaarad daday gacanta ku hayso ma liibaanaan tusaalaha waxa noo ah Xaftar iyo keensadeen Liibiya ku burburiyeen dawladda Turkiga ka soo gaartay dawladda dhexe tusaalaha kuwa labada nin oo Xamdaan Ishaya iyo ninka Suudaan madaxweynaha ka ahay labada nin iyada kala saboor garaynayso hadda Xamdaan waxa loo aqoonsaday ninkii oo la dagaalamay madaxweyne ku xigeenkii madaxweyne oo aqoonsadeen oo la keenay hadda iigaad waa ajaa'ibtay kamid tahay waa qodobka Suudaan waxa leedahay xiriirkan iigaad ugu jirno waa saas way burhaani wuxuu warqadu soo saaray laba nin oo walaalaha oo madaxweyne ku lugan kala qaybi kala gaxleen waa siyaasadoodu waa qaybi oo dhaxgal
waa laba waay maxay kaloo suubiyeen kuwa hadda xamar noo jooga dowladda dhexe ninka deeni la yidhahda xasan isma arki karaan deeni imaaradaa laga wacaa xasanna xaggaa laga waci realitigaad idiin sheegi macnaha realitiga jira waa saas waay marka imaaraat hadduu kusoo galo dowladda etoobiya maamul fiiri geela iyadaa gadaal ka fadhisa dowladda suudaan hadda iyadaa gadaal ka fadhisa etoobiya abi axmed iyadaa wadata kulligoodna abi axmed ka jeceshay limaada waa dowlad loo soo diray caalam alislaami inay dhulka la sinto waa war aan ka dhibcaynin marka walaalada hargeysa joogaa iyo meelahaasow koonfurta soomaaliya cadow idinkuma ahan bal codkan